بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق رشيد محمد كسو دواد رشيد سفاري تي في. maanta waxaan halkan inoogu soo gudbinayaa 5 qodob oo muhiim u ah dhammaan nolosheena. Qodobka koowaad waxa uu noqonayaa xiisayn. Qofka aadamaahi mar hadaanu niyad iyo xiiso u hayn hawsha marka uu ku guda jiro ama ay jirto duruuf ku qasbaysa qofkaasi hawshaas iyada marnaba ku guuleysan maayo. Waa inay jirtaa xiise iyo xamaasad qofka ku dhiirigelinaysa inuu shayga, shaqada ama waxa uu rabo ku riixda inuu qabto. qodobkaasi haddii aanu jirin waxba u suuragal noqon maayaan. Qofku waa inuu hal shay xooga saaraa si uu guul ugu gaadho. Buugu qoray qoraa Baakistani ah oo la yiraahdo Sheikh Khayra waxa uu yidhi dadka guuleysta ma qabtaan shaqooyin kala duwan ee shaqada ay hayaan ayay dhinacyo badan ka eegaan oo siyaabo kala duwan u qabtaan. Qodobka labaad, go'aan qaadashada. Go'aan qaadashadu waa doorashada shay kadib inuu qofku go'aan ku gaadho inuu kaga dhabeeyo oo aanu ka niyad jabin shayga uu go'aanka ku gaadhay. Waa inuu diiradda saaraa shaqada, waxbarashada, bilaabid ganacsi ama hawl kasta oo uu xiisaynayo. Go'aan qaadashadu waa qodobka ugu muhiimsan oo ku hogaaminaya hamigaaga. Qodobka saddexaad, bilaabid iyo hirgelin go'aanka uu qaatay qofkaasi. Qodobkani waa qodobka ku xambaaraya qofka hawshii uu go'aanka ku qaatay inuu kaga dhabeeyo. Waa hirgelinta iyo bilaabidda ama kaga dhabeynta hadba qofku wixii uu go'aan ku qaatay. Qofku haddii aanu hirgelin wixii uu go'aanka ku qaatay, dhammaan qodobada hore u suuragal noqon maayaan. Waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lisay. Qodobka afraad, joogtaynta. Qodobka joogtaynta hawsha qofka uu hirgeliyay waa qodobka go'aaminaya guushiisa bilowgeeda. Haddii qofku isku dayi waayo inuu joogteeyo hawl maalmeedkiisa, shaqadiisa, waxbarashadiisa ama ganacsi iyo fikrad uu bilaabay, waxba u socon maayaan. Weliba waxaa muhiim ah inaanu ka noqon shaqada uu go'aanka ku hirgeliyay oo uu meel sare gaarsiiyo. Xadiis ku sugan Saxiix al-Muslim ayuu Nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam, camalada la qabto waxa ugu khayr badan kuwa la joogteeyo. Kuwa adduunka lagu qabto kuwooda ugu wanaagsan waa loogu tusaale qaadan karaa xagga joogtaynta. Qodobkani haddii uu hirgeli waayo, dhammaan waxa aad qabanaysaa meel gaari maayaan. Qodobka shanaad, uguna muhiimsan, ku adkaansho waajibaadka Rabbi subxaanahu wa tacaala ku saaray. Dhammaan qodobada aynu soo sheegnay, qodobka salka u ahi waa kan, waxaana ugu dambaysiiyey si uu saameyn ugu yeesho qofka daawanaya ama dhegeysanaya. Haddii qofku ka adkaado cibaadada Allah subxaanahu wa tacaala ee ay ugu horeyso salaada iyo dhammaan acmaasha waajibka oo dhan, waa qof guuleystay. Guusha dhabta ah ee aan dhalanteedka ahayn waa qof joogteeya waajibkii Rabbi saaray. Sidaa daraaddeed, joogtaynta howlo adduunyo waxba la noqon maayaan. waxaana uu ku dambaynayaa qof guuleystay guul dhab ah sida Allah quraankiisa ku yidhi faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannah faqad faaz.